haddii uu kan istaago waa qofka koowaad waxaan siinayaa intaa qofka labaad qofka saddexaad waa meesha ugu badan aan u rajeynayo balse hadday dhacdo in saddexdooduba ay hal lambar soo wada istaagaan waxaa markaas kale qofkii hore labada dambe hadday kan kusoo wada istaagaan waxba may helin shardigu wuxuu yahay saddexda qof soo qabanayo ugu badnaan waxaan u tabaninayaa inay helaan saddexdaas lambar inay kala helaan ay saacad ugu istaagto haddii ka soko iyo maaragtay qaybo ebera iyo qaybo maaragtay intaa ka yar hadday soo helaanne waa fadaalika soo dhawaada shashatan oo garaacan oo sheer gareeya halkan waa tijaabi nasiibkaaga guuleyso nasiib waxaan ku rajeynayaa toddobaatan sintii baad heshay waa mahadsan tahay nasiib wanaagsan lambarkaaga hoos loo sareeb qofka labaad waa qofka ku xiga munakayf wala socdaa soo maa walaashay wala socod barnaamijkaaga okay walaashay nasiibka adagana nasiib wacan insha allah adiga munakayf waxaa haysataa saddex sinti ku soo baxday adigana lambarkaaga hoos noogu soo reeb waxaa ku xiga hooyo wiil hooyo waal miya hay walaalkii adigana nasiibkaaga waan ku tuuri karnaa soo ma hooyo wiil turi okay waxaan ku rajeynayaa adiguna hal sintiya kusoo baxa walaalkay waa mahadsantiin saddexdiina sidaas ay kushina noqotay qof hal sintiya